Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam dhamaan walaalihii Soomaali meel kastoo joogtaan oo markale walaashin xabsa shira kusoo dhawaada channelkayga wada maanta waxaa idin wadaa butter chicken ama chicken oo butter iyo waxa lagu daray oo aad u macaan. Halkan waxaa ku haystaa chickenka lugaha ayaa hilib kasoo jarjartay oo kaas ayaan jeclahay. Kabacdi waxaa ku darsanaysaa wixii carcaraf oo haysatid xawaaji kaari, xawaaji idil, xawaaji chickenka loogu daro cusbo, toon iyo sinjibiil ka qoyan, wax yar saliid liin dhanaan, kabacdi filfil gadaal ooga dari doono, cusbo. Intaas ayaa si fiican isku dhex gelgelinaysaa chickenka isay u noqoto chicken dhanag leh oo caraf leh oo kaaliska arag chickenka hadaa rabtid waa isticmaali kartaa midka oo liishaha ama chicken breastiga midka la dhahayo oo lafta aan lahayn. Suuqa waa ka helaysaa ani laakiin kan legska ayaa hadda ku haystay oo waan ka jeclahay, wuu ka macaan badan yahay kan oo plainka ma fahanteen. Marka chickenka aad u macyahay oo noocan loo sameeyay butter chickenka hindida ayaa caan ku oo aad iyo aad u macaan. Soo tijaabiye insha Allah wixii kala kulantiina isoo sheega. 30 daqiiqo ayaa dhigayaa kabacdi ayaan shiili doonaa insha Allah. Waa kana had digsiga soo qaatay waxaan sameynaa chickenka oo 30 daqiiqo ii yaalay ayaan soo shiili doonaa. Waxaan ku daray saliid yar iyo kasir oo butter chickenkan waxaan butter chicken loogu bixiyay waxa subag lagu daray awgiis waaye. Subag la'aan ma karin kartid oo butter hadaad haysanin macaan ma ku noqonayo ma fahanteen. Yacni sida loogu talagalay ma ku noqonayo. Marka hadana subaga isticmaal waa Blue Band iyo kasir oo saliid caday isku darsaday. Hadaa subag kaligiis waa ka dhigi kartaa laakiin kasir isku daray ma fahanteen. Because subaga hadhow gadaalna waa ka isticmaali doonaa. Marka inuu aad uga bato ma rabi chickenkan xoogaa yar hadaa saliid ku daray waa arkaysan Soomaan. Marka halkan waxaa sameynaa chickenka aad u soo shiilaysaa. Chickenka leegaan waxaa u choose gareey wax cad la leeyahay oo waxa u maleysaa inuu balq yahay laakiin ma ahan. Chicken legs ka soo jarjaray hilibkiisa leh waaye. Wuxuuna leeyahay carjo uu leeyahay chickenka lugaha Soomaan. Ani kaas jeclahay marka kan liishaha kana ka jeclahay oo ka macaan badan yahay marka cunaysid. Marka chickenka waa soo shiilaya si fiican la rabaa inaad u shiishid oo u qalajisid oo markuu ku bislaado waa ka saaraysaa digsiga. Waxaan sameynaa yaanyo hadana gooni loo soo karinayo ma fahanteen. Marka chickenka waa kana hadda woo shiilmay asiga iyo subaga way kala hareen. Wax markay bislaadaan waxaa ku fahmaysaa saliidii wax markay kala haraan Soomaan. Had weel gooni aan ku shubanayaa oo rabaa inaa hadana digsiga yaanyadii aan ku soo kariyo. Wuu bislaaday hadda diyaar waa xataa kaligiis waa la cuni karaa chickenkaas yacni maahan ceyriin maahan wuu bisilyahay ma fahanteen. Qofka jecelna wuu sii gaduudin karaa laakiin ana hadda waxaa diidayay inuu igaga dhago saliidda saarabi inaa aan ku sii karsado oo aan ku darin saliid kale oo badan because butter yar leh ku dari rabaa ma fahanteen. Marka halkan basal soo jarjaray aan ku daray basashana aad iskaga badinin because waxay ka qaadanaysaa yacni yaanyada iyo basasha waxaa la rabaa yaanyada inay badnaato basasha ay badnaan ma fahanteen. Marka hadda halkan waxaa ku soo darsanaa yaanyadana mana soo fiiqin mirahan ma ka bixin waayo hadhow ayaan rabaa inaan shiido oo miiro marka miraha iyo qolof gadaal ka reebi doonaa hadda laakiin waan ku karinayaa ma fahanteen. Marka waxaa ku darsanaysaa ay spice haysatid hadana waxaan ku daray shiishid xawaaji kaari basbaas gaduud hadaa waxaan ku daray chickenka qasaay marka halkan basbaas cagaar ku daray ani basbaaska badan ma jecli marka waxaan rabaa inaa basbaas meel dheer aan ka dhigo ma fahanteen. Yaanyada waxaa kaloo ku daray inkii ilaaway sinjibiil iyo toon si fiican markay u bislaatana ma aragteen ee karto waa soo shiideynaa hadda waa kaas way kartay si fiican u bislaatay. Kabacdi waxaa sameynayaa qalaadada gacanta aan ku soo shiidayaa smooth laga rabaa inay noqoto liisho. Kabacdi ayaan kala miiraynaa sida idin sheegay oo miraha iyo qolofta inaan ka bixiyo waa Soomaan. Marka waa kaas si fiican u miiraysaa waxaa la rabaa mataqaanaa maraq oo liisho oo smooth inuu ku soo baxo oo wax kuus iyo wax qashin dhan aan lahayn. That's why butter chicken loo dhahay liishahaas laga rabaa inuu ahaado butterka. Kabacdi hadda waxaan ku dareynaa chickenki hore u soo qaleysanay oo goonida noogu yaalay xoogaa isku karkarinee inuu isku soo badbadaal rabaa chickenka ku bisil yahay marqana ku bisil yahay. Hadda waxaa ku daray hal qaando butter sida hadaa idin sheegay hadaa rabto waa ka badsan kartaa adiga ama maraqaaga duu ka badan yahay waa ka badsan kartaa. Marka bacdi isku soo qaleysmo waxaan ku darayaa nus koob oo cream
kareemkaasna waa kareem loogu talagalay cuntada oo lagu kariyo, ma ahan kii doolshada oo macaanka lahay, ma ahan kan cooking cream aa la dhahaa. Marka nus koob ayaan ku daray, maxaa la dhahay kaala arag uu ka dhigaya macaan qurux badan, kaala iska arag si fiican markuu iskugu soo karkaro diyaar waaye. Waa kaas quruxdaas uu kusoo baxay, macaankiis lagama sheekeyn karo, yacni adoo ka dharagtaa iska rabtaa mar kale in lagugu celiyo. Marka waa kaasaa asaga iyo waxaa isku cunaa bariis cad iyo naankii aan hore u sameynaa videogiisa aad soo arkeysiin. Waa mahadsantihiin. Please like and share and subscribe. Asxaabtiin la sii wadaaga.